dalkeena dadkiisa boqolkiiba 70 in ku dhow waa dhalinyaro da-yar ah oo wiilal iyo gabdhaba leh meel kastana ku nool dalka. waa mustaqbalka dalkan iyo muxuu ahay awoodda dalkan meesha ay taallo waa meeshaas. sidaas daraaddeed maadaama mustaqbalkeena uu saaran yahay dhalinyarada, dowladdeyda waxaan rabaa in ay hortebinta barnaamijyadeeda hortebinta ay ka mid noqoto horumarinta dhalinyarada. dhalinyarada dhinac walba ayaan rabnaa inaan u horumarino. dhalinyarada waxaan rabnaa xagga aqoonta, xagga fikirka, xagga maxaanku irahday fursadaha intaba inay ka hormaraan. leanna waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed markii fursad la siiyo in ay cid walba ka fiicnaa karaan, inay cid walba ka horumari karaan, inay cid walba ka awood badan karaan, wax soo saari karaan. sidaas daraaddeed maadaama dalkani ay fursadaha ay cidhiidhi iska noqdeen, dowladdeenuna ay muddo dheer dowlad nugul soo ahayd, welina ay dowlad nugul tahay, waxaan rabnaa inaan markaan aan xoogga isugu geyno sidii dhalinyarada iyo horumarinteeda dhinac walba ah looga fikiri lahay. waxaan rabnaa galabta rabaa inaan ku dhawaaqo inaan furayno haddii alla yiraa hindisaha horumarinta dhalinyarada qaranka ama dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan rabno talada dalka inay wax ku yeeshaan, jihada dalkan uu aadayo, waxyaabaha la qabanayo, waxa mustaqbalka ee soo socdo la wada hiigsanayo, dhalinyaradu inay doorna ku leeyihiin, talana ku leeyihiin. muhiim maaha inay titles iyo xagga iyo ka yeeshaan, laakiin talada mustaqbalka qaabeyntiisa inay dhalinyaradu ay aasaas u yihiin, saldhig u yihiin, ra'yigooda iyo caqligoodana uu yahay midka lagu soconayo oo aan anigu aaminsanahay inay yihiin dadka ugu habboon ee inay caqligaas dhiibtaan. waxaan abuuri doonaa ayadoo dalka guud ahaanba saaxada siyaasadda inaan furno aan rabno, oo sida dastuurkeena uu caddaynaya aan rabno in xuquuqda isu imaatinka, xaqa isu imaatinka, xaqa wada tashiga, xaqa maxaanku rahay afkaarta xorta ah oo madax bannaan dadku inay gudbiyaan ayadooba dastuuri ay tahay meel taallo, haddana inaan abuurno jawi dhalinyaradu ay isugu imaan karaan, ra'yigoodana ay dowladnimada iyo qaabeynta mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ay ku biirin karaan. shirweyne qaran oo dhalinyarada Soomaaliyeed ah, dal iyo dibad meeshii ay joogaanba inay wakiiladooda isaga yimaadaan oo ay ka shiraan ajendayaal mucayana oo ku saabsan qaabeynta mustaqbalka ummadda iyo qaabeynta mustaqbalka dalkan. waxaan rabnaa markaa in dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan ay u diyaar garoobaan muxuu ahaaye madaladaas ama shirweynahaas qaran oo aan mar dhow deydkiisa soo cayimi doono, soona sheegi doono. wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hortebinta u leh dhalinyarada, ujeedooyinkeedana uu yahay in xiriirka dhalinyarada iyo dowladdana la xoojiyo. xiriirka dhalinyarada dhexdooda iyaga ah, gobollo kala duwan ha ku noolaadeen, dalal kala duwan ha ku noolaadeen, mihnado kala duwan iyo maxaanku rahdaa ha ku jireen, iyo inay yacni iska warqabaan oo dhalinyaro ahaan dhalinyaradu ay iska warqabto, dhalinyaro ahaanna xaqa ay leeyihiin iyo danaha ay leeyihiin iyo waajibaadka dalka uu ku leeyahay ay fulinayaanba wax ay ka tashadeen oo ay iswarsadeen oo ay ka doodeen oo isaga warqabaan inay noqoto ayaan muxuu ahay aad iyo aad yaan uga talinaynaa una rabnaa inaan ka sheegno. shirweynayaashu waa isdaba socon doonaan, dalka gudihiisa marba meelaa lagu qaban doonaa, marba meel ayay dhalinyaradu isugu tegi doonaan, laakiin albaabkaasi maantaan bilownay waa furan yahay, waanu soo socdaa haddii alla yiraa insha allah. taas marka intaas aan ku soo koobo, waxaan rabaa kale inaan ayadana galabta fursad waaye aan ka dhawaajiyo dadka Soomaaliyeed. ma aha dhalinyarada oo keliya ee dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la abuuro fursadahaas oo ah shaqo abuur, hindise shaqo abuur ayaa waxyaabaha hortebinta leh oo dowladdeeda xukuumaddeenu inay la timaado aan rabno maalmaha usbuucyada bilaha soo socdo waaye. waxaan rabnaa inaan abuurno fursado in dowladda loo wada shaqeeyo oo dhalinyaradu ay wasaaradaha iyo meelaha bes ma aha, dhalinyaradu waa inay iyagu lasadooda ay awood leeyihiin oo ay shaqo abuuraan, dhalinyaro kalena shaqo u abuuraan laftooda. waa midda aan lahayn dhalinyarada haddii fursad la siiyo wax badan ay qaban karaan.
dowladdu waxay ka shaqeynay dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad siiso si ay ula yimaadaan muxuu ahaay arin ibdaaciyaad ah ama creativity-ga ku jirto xoogga iyo awoodda ku jirto tabarta ku jirta dhalinyarada inay la yimaadaan oo ay kula yimaadaan hindisooyin aqoon ku salaysan oo ay ku samaysan karaan shirkado ganacsi initiative ama hal abuur ay ku dhaqangeli karaan dowladduna ay gacan ku siiso si koox kastoo dhalinyaraha isu tagtaaba koox kaloo dhalinyaraha ay fursado ayagana ugu sii abuuraan oo ay usii socoto waxaa intaas dheer muhiimadda koowaad oo dalka xoreyntiisa ah ayaa hadda noo horeysa mar inaan dhalinyarada xoogga isla saarno dalka sidii loo xoreyn lahay si aan usoo jiidano investmentiga caalamiga dowladdani waxay ka shaqeyn doontaa inay abuurto jawi oo maalgelin caalami ah iyo maalgelin Soomaaliya hantida Soomaalidu ay leedahay ee dibadda jirta hantiilayaasha Soomaalida ee la cabsaday hantidooda la cararay ee dibadda geeyay inay soo celiyaan oo dalka ay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan si fursado loogu abuuro dadka Soomaaliyeed guud ahaan shaqo loogu abuuro dakhli loogu abuuro arrimaha amniga ee aan sheegaynahay waxaa qayb weyn oo muhiim ka ah amniga quudka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo food security waa meelaha aan rabnaahay dhalinyarada inay shaqana ka abuuraan ganacsina ka abuuraan dalkan ay u abuuraan u sameeyaan kalsooni buuxda oo ku saabsan in amniga quudka xaggiisa dalkani dhinac walba marka loo fiiriyo badda iyo bar haddii la yiraahdo xoolo iyo beer haddii la yiraahdo waddan qani ahanahay haddana gacantaa noo hoorsan maalin walba gacan hoorsigaas inaan ka baxnaan rabnaa oo aan dadka Soomaaliya shaqo dowladdani waxay ka shaqeynay in ay maxaan ku raadayay qoys kastoo Soomaali ah oo fursado dakhligiisa kor uu kii hadda dakhli lana kor uu kaco kaan hadda dakhli haysanina uu dakhli u abuurmo inaan ka shaqo fursad shaqo abuuris ee loogu abuurayo dadka Soomaaliyeed guud ahaan marka niraanad dadka Soomaaliyeed guud ahaan inta ugu badan waa dhalinyaro hadda mar kale dhalinyarada ama haddana marka dalka Soomaaliya talaab kastoo qaado dalka la xoreey hadii waa dhalinyaro dhaqaalihiisa kor hadii loo qaado la waa dhalinyaro aqoontiisa iyo adeegiisa bulsho kor loo qaado hadii la waa dhalinyaro dhaqaatiir haddaan u baahanahay injineer haddaan u baahanahay kulli dhalinyaro ka imaanay dhalinyaradu marka xoogga noocaas ah in fursado la siiyo oo ay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan yaan loo wada hanqal taagin in dowladda loo shaqeeyo dowladduna furasku way furi doontaa way ballaarin doontaa in ay muxuu ahay shaqaalo badan oo dowladda u shaqeeya la qaato laakiin waxaan rabno waxay tahay inta dowladdani ay abuuri karto shaqo ah waxaa 100 jeer ama 1000 jeer ka badan inta shaqo ee private-ku abuuri kara ama hadda uu hayo shaqaalaha dowladda ilaa 5000 iyo jarjar waaya la yiraa private-ka maanta jira meeqa u shaqeyso meeqa kuna u shaqeyso waa 2 jibaari 3 jibaari 4 jibaari waay marka mar walba waxaan xoojin doonaa private-kana waxaan rabnaa private-ka yar oo ay dhalinyarada hormuud shirkadaha yar ee ay dhalinyaradu ay ka tahay hormuud maaha kuwa waaweyn oo muxuu ahay balaayiinta dollar haysta maaha kuwa yar ee hadda jirana in lasii dhiirigeliyo haddii ay adeeg hayaan iyo hadday wax soo saar hayaanba kuwa cusubna in la abuuro oo ay ku soo biiraan saaxada haddii la yiraahdo sidaas daraaddeed waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha u diyaar garoobeen dalkan in ay hore u dhaqaajiyaan ha u diyaar garoobeen in ay dowladooda gacanta inta qabsadaan fursadaha oo dalkan leeyahay oo dhan inay gacanta ku dhigaan ay ka faa'iideystaan maanta haddii aanay ayaga sidaa yeelin meel banaanaanaysa ma jirto fursadihii inta soo baxaan haddii ay waxaan saan u leenahay waxaa ka mid ah fursaa abuurmaayo mar dhow fursadahaas abuurmaayo haddii aanay dhallinyaradeenna aanay buuxin oo aanay qaadanin meeshu cidlo ahaan mayso waa la soo buuxinaa waxaana soo buuxinaya dhallinyaro kale oo maxaan ku ihahda ajnabi ah odayaal waayeela nooma soo shaqo tegi doonaan waxaa noo soo shaqo tegi doono generationkan meesha taagan wiilashan iyo gabdhahan iyo inta la da'daa la midkaa la aqoontaa xataa yaa noo soo shaqo tegi doono marka annagu aan u xaydxaydanno una diyaar garowno furaskaas inaan annagu buuxino sidoo kale inaan abuurno furaska annagaana laga rabaa inaan abuurno
dowladduna fursadahaasi ayaduna dowladdu wixii fursa abuuri karta laakiin yaanan meel loo fadhiisanin oo la dhihin dowladdaa soo wado idinku inaad abuurtaanaan rabnaa dowladduna way abuuray si wax badan ay u noqdaan dowladda bes haddii la sugo dowladdu fursad ay abuuray waa kooban yihiin dhalinyarada keligeed ha loogu sameey inaan dhahno oo furaska abuuray ayagoo koobnamo inaan isku darnaan rabnaa labada xoog aan isu geyno oo aan furas badan oo dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalo ay helaan oo meel walba leh kan miyiga joogana waa inuu furas helaa loo abuuraa fursado kan magaalada joogana waa in loo abuuraa kan xeebta ka shaqeeyo kalluumaysiga ama khayraadka badda ka shaqeeya kan khayraadka xoolaha ka shaqeeyo kan maxaan ku raha beeraha ka shaqayn doono kan ganacsiga ka shaqayn doono dhammaan waa inaan muxuu ahayo maxay ahayd gabagii dheeraayo abwaankii soomaaliyeed dunidaba ma joogto dowlad wada karaaniya yacni ummad xafiisa wada fadhido oo warqad tiimbaranayso midna warqad saxiixayso ma dhici karto dunida ma wada noqon karto waa tii shaati madow haysataa oo maxaan ku rahdaa overall gashan oo gacmaha iyo maxaan ku rahdaa jirka olyo ku leh oo shamiinta dhismo iyo dhiiqa ku leh oo socoto waaye markuu shaqada ka soo baxana inta isnadiifiyo suudkiisa soo xirto muxuu ahay magaalada yimaada asigoo oo nadiif oo muxuu ahay suud fiican xiran kara ama iibsan kara aad iyo aad ayaan dhalinyarada soomaalida meel kastoo joogaan leeyahay dhalinyarooy dalki iyo dadki iyo deeqa badan ee dhex yaallaba idinkay marti idin yihiin yaan laysku halaynin yaan laysgaabsanin xoog iyo awood iyo aqoon iyo caqli dadka dunida ku nool haddaadan ugu saraynina uguma hooseysaan nafsadiina ku kalsoonaada dowladdiinana ku kalsoonaada dalkiinana ku kalsoonaada horay u dhaqaaqa haddii ala yiraha beri iyo beri dambaba haddii ala yiraha aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh